السلام عليكم ورحمة الله دمان Opulence Empire iyo dhamaan walaalaha inaga daawanaya Opulence Empire YouTube channel iyo walaalaha inaga daawanaya Facebook live iyo dabcan Zoom-ka igula jiraan hadeertaan magacayga Faraxsooyid Xasan ayaa la dhahaa maanta waxaan inoo sharxi doonaa company runtii aniga muddo 5 sano hadda aan ku jiray markaan dib u fiiriyana aan dhihi karo boqolkiiba boqol noloshayda waxa uu ka bedelay hadday noqoto caafimaadkayga hadday noqoto daryeelkayga iyo midda ugu muhiimsan dhaqaalaha sababta ay tahay markaan ku soo biirayay waxaan ahaa shaqo full time ayaan ka shaqeynayay kadibna markaan soo galay 2 sano gudahooda waxaan gaaray inaan sameeyo 2 jibaar dhaqaalihii aan ka sameynayay shaqada dawladda Canada markaas si toos uga fariistay hadda muddo almost 3 sano July-dan ayay 3 sano in noqonaysa hadduu Ilaahay in 2 bilood kadib inta aan ka maarmay qof gacan bilaadan ah aan gaaray waxa ay dhahaan financial freedom xorriyad dhaqaale ama time freedom waqtigeena xor u ahay maanta marka waxa idin sheegayaa company-gan Opulence Global muxuu yahay muxuu iibiyaa sidees gurigaaga adoo joogo ilaa iyo 200 wadan oo ganacsan kartaa meel kasta dunida ka joogtid so waxa ugu horeysa ka hadlayna waxa waaye shayga aynu iibino shayga ugu qaalisan ama ugu saameynta weyn waxa waaye sharoobo la dhaho fountain of life oo laga sameeyo waxa la yiraahdo antioxidant oo ah waxa wasakhda saaro labo maxaynu ka hadlaynaa sida dhaqaalaha ugu badan uu u yahay company-geena wax allaale waxa MLM-ka ama network marketing ah dhaqaalaha ugu badan kan laga sameeyo inuu yahay labadaas ayaynu diirada saareynaa so wax yar dib hadda inoo celiyo sideedo qofka bilaadanka ah muxuu u xanuunsadaa lagu leeyahay waxaan u xanuunsanaa wax la dhaho free radical oo ah dhinac walba wax naga soo galaayo so qofka markuu caafimaad qabo waa saan oo kale tufaaxana tusaale looga soo qaaday marka xanuunsan rabtid waa tanaa haddii marka xanuunsatid ama free radicalka ay ku imaadaan korkaaga ee galaan haddii aadan markaas ka gaarin saana noqonaysaa okay haye xageeba ka imaadaan waxa la dhahayo free radical wax allaale waxaynu isticmaalno hadday noqoto hurdo la'aanta hadday noqoto telefonkeena iyo internetkiisa viruska even qofka markuu exercise ka sameynayo oo si xooga u sameeyo uma fiicna cuntada banaanka aynu ka gadanayna har iyo habeen wax allaale waxa toxinka sigaarka la cabaayo guryaha waxyaabaheenu ku clean gareyno iyo radiationka fiiri moldka waxaan waxa guryaha galaa waa aragteen meelaha madmadoowaado oo kale drug isticmaalayno kiniiniyaasha isticmaalayna ayagana waa laga helaa stresska laga helaa ciridda ayaa laga helaa pollutionka ayaa laga helaa iyo alcoholka okay meel kasta yacni waa wax agteena taalo haye sidee marka waxaas har iyo habeen korkeena ataagareenayaan sidee isaga difaaci karnaa sida ugu fiican waa waxa la yiraahdo antioxidant marka labadan mid ayuu ka imaadaa mid waa midda oo ah vitaminada midna waxa waaye waxa naturalka oo dabiiciga ah sida cuntooyinka dhibkooda maxaa waaye laakiin waa perishable maxay ka dhigan tahay isla markaa way qurmayaan sidoo kale waxa lignanka la dhaho ama antioxidantiga aad ay ugu yar yihiin sidoo kale fruitkan iyo vegetablekan ma ku adkeysan karaan heatka ama kuleelka okay haye choice-ka marka ugu fiican maxaa waaye qofka inuu isticmaalo antioxidant ama laga sameeyo plant geed laga sameeyay meeshan bal fiiriya qofka bilaadanka waxa lagu leeyahay haddartan adduunka joogo wuxuu maalintii cuntaduu qaata ka helaa hadday u badato 1 milligram oo ah lignankii oo ahay antioxidant waxay wasakhda saaraya laakiin qofka muxuu u baahan yahay 50 ilaa iyo 100 milligram hal kaliyana ka qaadanaa taa maxay ka dhigan tahay aad iyo aad ugu baahannahay haye fiiri marka meeshan markii la fiiriyo waxyaabaha ugu antioxidantiga badan oo korka u fiican waxa waaye shay la yiraahdo flaxseed markii loo barbar dhigo shayga annaga aynu hayno fountain of life bal ila fiiriya boqolkii milliliter oo ah flaxseedka waxa ku jiro 300 milligram oo ah lignan ama antioxidant okay haye fountain of life fiiri boqolkii milliliter oo fountain of life maxaa ku jiro 5166 milligram oo ah antioxidant taa maxay ka dhigan tahay boqolkiiba boqol fountain of life ayaa quwad badan mar dhowna waxa arki doontaan intee bay la eg tahay quwadday ka sii badan tahay geedka marka laga sameeyo fountain of life waa kana waa geed yacni history dheer iyo sheeko dheer leh waxaa lagu leeyahay geedkan wuxuu noolaan karaa 10,000 iyo 100 iyo malaayiin sano yacni weligii ma dhinto maxaa kale wax allaale waxa ciridda ama qoraxda ama roobka ama barafka wuxuusan u dulqaadan karin malaha
sidoo kale waa self healing keliga ayaa iskaba markay noqoto antioxidant ama wasaqda waxa saarana number 1 ayuu ka yahay maxaa kale waa anti inflammatory caabuqa iyo waxas ayuu la dagaalaa haye sheekada marka waa kana Norwegian spruce tree geedka ugu dheer oo Norwegian wuxuu gaarayaa lagu leeyahay 204 lugood ama tilaabo feet waa tilaabo can you imagine haye waa kana marka geedka waxa shayga laga sameeyay oo annaga aan soo saarnay waxa la dhahaa fountain of life haye fountain of life waxyaabaha su'aalahan la weydiiyay waxa kamid ah waxaan baaritaan soo martay yes wasaaradda caafimaadka ayaa soo xaqiijisay sidoo kale inay qof aan ahayn laga ma helo sida ugu dhaqsaha badan ayay u shaqeynaysaa maxay tahay waa natural waa vegan and alcohol iyo hebro laguma darin yani wax waliba oo fiican ayaa ku jiro haye maxaa kale oo ku jiro iyadoo marka sample ahna way jirtaa iyadoo weynna waa jirtaa maxay kale oo ku fiican tahay waa tana iyada dibana loo celiyay haddii waxa idin sheegay shay la dhaho flaxseed antioxidant u badan tahay markii la barbar dhigo fountain of life ayaa ka xoog badan 17 jeer subhanallah 17 jeer ayay ka xoog badan tahay taa waxay ku tusinaysaa waxa antioxidant wasaqda saaro difaaca dhiso wixii ugu fiicnaa inaynu idin hayno fiiri meeshan marka fountain of life soo shaqeysaa qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay 10 dhibcood kaliya maalintii inuu qaato 10ka dhibcood maxay u dhigmaan 50 koob oo ah shaaha greenka ah shaaha cagaarka ah yaanyo 100 xabo yaanyo ah 510 salar ah iyo 1800 tufaaxa bal intaanoo fruit iyo vegetable maalinta ma cuni kartaa may sidoo kale ma gooyin kartaa no haye waxaasoo dhan maxaa kaa kaafinayo 10 dhibcood oo fountain of life fiiri meeshani marka qofka markuu qaato waxyaabaha antioxidantiga ah ama wasaqda saaro oo geedkaas laga sameeyo maxay taa waxyaabaha faa'iidooyinku helayo wuxuu dhisayaa difaaciisi maantana waad aragteen hadba cudur heblaayo hadda Malaysia ka soo tagay waxa la sheegay COVID-19 inuu soo laba celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga mangaliyo right in qofka difaaciisa uu ka shaqeeyo maxay kale oo ka caawinaysaa ilowshihi wadna xanuunkii prostate cancer-ka ragga cancer-ka gala xiidmaha macaankii iyo inflammatory caabuqii iyo bararkii hooyaday macaan ayaa number 1 ka ahayd 15 sano hooyo waxa ay qabtay waxa ay dhahaan rheumatism ama arthritis lugu xanuun kor xanuun salaad jaraanjarta istaaga socodka dhibi jiray sharoobada markay qaadatay 3 isha gudahood waxay ku dareentay nafis 3 asbuuc kadibna hooyo wax alaale wixii dhibi jiray caada ay u noqdeen haye maxay kaloo ka caawinaysaa timahaagi yes maxaa kaloo sameyn kartaa shaambadaada ayaa ku dari kartaa waxay kaloo ka caawinaysaa ilkaha ciridka soo markaa qaadanaysid waxaan kula talnaa inay ku luqluqdaan maxaa kale waxa loo isticmaali karaa deodorant ama kilkiraha la marsan karaa maxaa kale wax allaale waxa nabar ah meeshii ku gubato meeshii ku jeexanta inta waa la marinaa waa adaaba sheegayaba iyo hemorrhoids waxa waaye baabasiir number 1 ayay ka tahay iyo dabcan cidiyaha waxaasoo dhan ayay ka kaafinaysaa shayga kale marka oo alaabteena ku jiro oo alaabaha suuqa yaala aysan ku jirin maxaa waaye waxa la dhaho microsilver waxa waaye wax oo ah antimicrobial bacteria la dagaalamo antiviral iyo anti-inflammatory caabuqa iyo infectionka iyo waxaas ayuu la dagaalaa haye waxa lagu soo baaray marka Germany microsilverkan hadduu shaqeynayo iyo haddii kale markii la isticmaalayay waxa lagu isticmaalay basaska ugu waaweyn Germany meelaha waxay u badan tahay trainyaasheed ugu waaweyn yihiin meeshii lagu buufiyay marka microsilverka markii lagu buufiyay waa kana kursiga markii lagu buufinayay waxa ku jirtay 23876 germ meeshaan fiiri hal isbaray kadib 308 maxay halkan sheegayaan markii lagu buufiyay 2 daqiiqo gudahood 99% waxaan ka wadaa 94% ayaa laga waayay bakteeriyada 30 daqiiqo kadibna fiiri 99% haye maxaa marka laga sameeyay microsilverka daawadeena cadiga waxa laga saaray sun la yiraahdo fluoride haddaadan aqoonin fluoride iyo dhibaatooyinkeeda dabcan Google tag waxa qoraysaa fluoride iyo dhibaatooyinkeeda maxaa waaye way buuxaan maxaa ku garanay inay fluoride dhibaato leedahay daawada cadiga ku taal guriga gadaasheeda akhri maxaa ku qoran inta in kamid ah haddii ay kugu cararto waxa tagtaa meesha lagu baarado ka sunta liqay
وقف كودي كم الدلين محاكرة لسوء قاعدي هواك مركي أوفك ليهين أو مركي نوجينايان إن research أما باريتان إسمه هارفارد يونيفرسيتي جامعة لها الله قدام بين مريكان كان إن المحاس هدي فلورايد exposure أو دعو markii ama hooyada uur ku jira ama markuu dhashay kadib ilmaha caqligiisa inuu ku hooseeyo ilmihii kale yes maxaa kale marka ay la haysataa ilkaha way ku cadeynaysaa haddana waa long lasting saak subaxisa u cadeetid ilaa habeenkii waa fine maasha allah afkaaga marna ma halaawaayo waa carfaaya maxaa kale ilmihii xataa way isticmaali karaan yes ilmaha caawa dhashay ilaa iyo 9 jirka ayaa isticmaali karo maxaa kaloo ku darna microsilverka isbraygeena waa tana oo ah alcohol free ayadana alcohol kiya laga saar anaga alaabteena dhan waa dabiici ogaada microsilverka markii lagu daray maxay ku sameynaysaa koow waxay ka clean gareynaysaa wax allaale waxa microbe maxaa waaye bacteriada miiska friisanaysa ku buufinay albaabada guryaha ku buufinaysaa gaarigaaga markaa galaysid maskigaaga adi iyo bacteria waa isdeenaysaa maasha allah sidoo kale orderka gabdho waxaa jira nurseyaal ah oo kabahooda waxay ku leeyihiin maanta markaa ku shaqaynayno way suyacayaan way ku buufinayaan clean soo wasaqda xataa way dishaa maasha allah tabaarakallah haye maxaa kaloo idinku darna microsilverkeena kareenkeena gacmaha miiskayga lagama waayo mar walba saka agyaala saa u jeclahay asaga iyo caraftiisa xataa maasha allah aad iyo aad u carfoon yahay markaa marsado markasta waa ursadaa maasha allah caraf amazing uu leeyahay haddana korkana waa la mariyaa ogo wajigana waa marsan kartaa microsilverka lagu daray maxaa kaloo lagu daray goojadeena geedka laga sameeyay ayaa lagu daray adig iyo qaleel waa isdeenaysaan adig iyo bacteria waa isdeenaysaan olive oilna way ku jirtaa shea butterna way ku jirtaa yacni waa incredible haddii aadan tijaabinin ma dareemi kartid ilaa isagoo weynna waa haynaa isagoo yarna waa haysnaa choiceka adaala kaa doonta ayaa qaadanaysaa maxaa kaloo ku haynaa shaambooyinkeena aad iyo aad loo jecel yahay maasha allah shaambooyinkan waxaan ku jeclahay midda waa midda haweenka waxaan ku jeclahay waa 2 in 1 korkana waa lagu dhaqayaa timahana waa lagu dhaqayaa timo daadanayo aflaaqo iyo timo googo'aya maalinta bilowda ayaa kugu dambeyn doonta ogaan doontaa maxaan ku darnay marka shaambadeena geedkii laga sameeyay goojadeena maxaa kaloo ku darnay dacar aloe vera akeberry iyo biotin waxa waaye dad waxa jira kiniyaal qaataan biotin waa waxa timaha iyo cidiyaha iyo bixiyo intiiba ayada ayaa ka kaafinayso qofka markuu isticmaali kara maadaama ay weyn tahay 500 ml 6 bilood ilaa iyo 8 bilood maasha allah waqti dheer ayaa haysanaysaa faa'iidada u dambeysana adduunka ayay taala midaana waxa waaye waa mid ragga yes waa loo sameeyaa su'aalahan la weydiiyay ganacsigeena waxa waaye haweenka liimi u furan yahay may nin ragga aasay dabcan alaabteena rag iyo dumar way leedahay maxaa marka iyadana sidii oo kale waa 2 in 1 korkan waa ku dhaqanay timahana waa ku dhaqanay geedka ayaa lagu daray akeberry ayaa lagu daray yacni maxay ka habeynaysaa timaha salkooda ayaa iyadana ku habeynaysaa timo daadanayo googo'aya ilaa iyo ciradii ayay ku madoobeynaysaa maasha allah maxaa kaloo idii heynaa kareemada wajiga kareemadan runtii waxay soo baxeen fountain of life ka hor haddaysan ayaga ahaan lahayn fountain of life lama helen why waxa lagu daray geedka laga sameeyay fountain of life midka maalintii iyo midka habeenkii hadhowta markii la arkay dadka isbedelka badan ay heleen baa la yiri ma laga sameeyo wax gudaha laga qaato hadda waxay ku jiraan rebranding dib u habeen ayay ku jiraan ayagoo hadda waxa la soo wadaa amazing ah waxa loo deyn doonaa midan wajiga lagu dhaqo kan maalintii iyo kan habeenkii labadan waxa naga kaafinayo product kale aan soo wadna la dhaho collagen oo jabiibo dhaaftay ka dhigaysa maasha allah kareemadan isla ogaada yacni waxa ugu horeysa markaan tijaabiyo midaan ayay ahayd oo wajiga lagu dhaqay awalka hore markaan wajiga iska dhaqo dadka waxa ahay indhaha eyeshadow iyo marsada markaasaad hadhowta igama fuqi jirin waxay ahayd inaad si gooni ooga dhaqo hadda laakiin kana iga filan afkaaga waxa ku saaran meel kasta wajigaaga sidii subaxii markaa soo kacday ayuu dib kugu celinaya kaliya andan kana ku dhaqaysaa kana marinaysaa ka wadaa andan habeenkii waa imaani kana ku dhaqay again kana ku seexanay incredible maasha allah haye hadda fiiri waxaan u tusinaa timaha waxyaabaha ugu badan oo dadka cawanaan rag iyo dumar hadda Malaysia ka imaado waxa lagu leeyahay biyahooda waaye timihii dhan dadka dhan way ka daateen rag iyo dumar waa la cabanaya soo timaha maxaa daadiyo markii qofka yaraato ama ay badato
testosterone kooda. Okay, so madaxan imise qof ayaa aragtay saan ayay marka hore ku bilaabanaysaa Soomaalida waxay dhahnaa salxayo maaha waa lagu soo socdaa ay ka dhigan tahay saana noqonay tartiib hadhowtina fiir saana noqonay haddii aadan ka gaarin haye maxaa kale lignanka ama waxa la yiraahdo antioxidant maxay kale u fiican tahay waxyaabaha cancerka ilaahay subhanahu wa ta'ala naga mangeliyo qofka inuu qaato wax antioxidant waxa la soo ogaado baaritaan markuu qofka badsado antioxidant ninkaana soo ogaaday oo jooga Finland oo dhaqaatiirta ugu sareyso markuu badsado antioxidant 30% chance inay ka yar tahay inuu helo cancer subhanallah maxaa kaloo la ogaaday qofka markuu badsado antioxidantigiisa in ay ka yaraanayso wadna xanuunka chance ku dhaceysay ilaa iyo 30% soo mar labaad saddexaad antioxidantka korkeena kaliya ma caawinayso cudurrada waaweyn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka mangalana xataa hor u tag ay u tahay ma sha Allah tabarakallah haye fiiri meeshan marka breast cancer waa kana again dadka waxa lagu talagalay kuwan research-ga jecel dad badan ku weydiinaya our research-gi so information ka iyaga ayaynu u sameynay okay hadda waxaan tusinayaa Fountain of Life testimonial dadkii ka marxaati kacay oo sawiro indhahaaga ayaa ku macalin reer galbeedku waxay ku maahan a picture says 1,000 words hal picture wuxuu u dhigmaa 1,000 kalaamood okay kaliya marka maxaa laakiin idin siinaya digniintaas maxaa waaye Fountain of Life inaysan ahayn cure ama dawo okay cudur inay daweynayso dawo ma aha kaliya maxaa waaye high performance antioxidant wixii wasaqda saaray difaaca dhisay ayay number 1 ka tahay kaliya taasun ogaada okay testimonial ama marxaati kacana waa dadka adduunka jooga dad badan waxa ku jiro sawirada arki doontaan kumbaniga xataa ku jirin laakiin waxa ay arkeen nala soo wadaageen haye waa kana timaha fiiri okay before iyo after waa timihi asxaabti timaha ka daadan jirtay okay meeshan fiiriya ma sha Allah tabarakallah gabadhan waa aqaanaa okay fiiri se aheed markay ku bilaabaysay 3 bilood kadib haddana fiiri hadda ka sii fiican tawayaabsa timaheeda si u baxeen okay wiilkan fiiri maadaama China ku qoran tahay China ayuu joogaa okay wiilkan video dhan laga hayaa videogiisa daawato waa isku ooyaysa asagoo yar cudur ayaa ku dhacay cudurka magaciisa waa ilooga oo timihii dhan ka dhamaadeen markuu baxaayo wuxuu xiran jiray funaanad halkan qoorta u dheer tahay intan wuxuu saaran jiray koofiyad sida loo arkin maadaama nin yar yahay timo la'aan uu yahay muusa jeclay in la arko maantana fiiri ma sha Allah tabarakallah okay more timaha gabadhan again waa aqaanaa fiiri markay bilaabayso Fountain of Life say ahead okay haddana timaheeda fiiri 100% u buuxsameen soo maxay tiri dhowr dhibcood ayay ku shubi jirta timaheeda markaas ay ku massage gareyn jirtay okay hadhowtina 10 dhibcoodna afkay ka qaadanaysa okay haye more ujeeda madow cadaan arab ajab everybody ayaa ka marxaati kacay okay kanna maxaa waaye dadka korka ka mariya okay so wiilkan wuxuu haystay inflammation dhowr asbuuc ayuu loogiisa bararsanaa hal saac kadib markuu mariyay Fountain of Life bulfiiri subhanallah korkana waa mariyuu ku leeyahay afkana waa ka qaatay saacad kadib fiiri meeshan say tahay ma sha Allah tabarakallah okay halkaana fiiri يعني bahashan iska daa maalin iyo asbuuc iyo dhowr biloodi saacad ayay dadka qaarkood faa'iidada u arkaan xisaab ma laha ma sha Allah tabarakallah okay haye fiiri wiilkan okay wuxuu yiri waxaan arkay wiilkan oo halkan dhan xanuunayso markaas 4 dhibcood ayaan Fountain of Life loogu shubay okay 30 daqiiqo kadib bararkina wuu degay xanuunkina wuu joogsaday bal fiiri meeshan 30 minute gudahood ma sha Allah tabarakallah haweeneydan waa aqaana Sonia ayadana bal fiiri okay saan ayay ahayd maqaaxi ayay tagtay cunto ayay soo cunto seafood ee dhahaan haye way barartay saanay ahayd 5 maalmood kadib bal fiiri ha so mar labaad iyo mar saddexaad waa marxaati madoonto alaabteeni okay halkaana maxaa waaye dadka macaanka qaba okay macaanka qaata ayagana si u caawinayso markay fiiriyaan levelka sokortoodii iyo hadhoodii okay
ما شاء الله تبارك الله so waxaanoo dhan waxay ku jiraan Fountain of Life page-keena okay page-keena ayay ku jiraan okay halkaana fiiri mar labaad korka markii la marinayo July 18 todobadii iyo barkii habeenimo ayuu ku mariyay 40 daqiiqo kadib fiiri hadhowtina fiiri ما شاء الله تبارك الله so more sawiradan fiiri subhanallah subhanallah qofka lugtiisa ahayd ma wala fiirin karaba waxyaabaha kale oo la weydiiyay waxa waaye sidee loo ogaado dadkan faa'iidada ay heleen in ay ka heleen Fountain of Life ilaa ay dhaqaatiirtooda ay u tageen maxaa marka qofka kula talinaysaa qofkii xanuun gooni ah haysta marka ka cabanayo fadlan qor baa leedahay dadka marka way qoreen okay way qoreen meeshuu maraayo markaas sokortoodii right meeshii marayso iyo hadhowda tartiib sida improvement u sameynayso so marladan saddexaad dhaqaatiirtooda way la tashtaan dadkeena macaamiisheena badankooda okay so halkaana fiiri ilaa iyo indhihi aragtidii inay u fiican tahay ma ogtihiin ani way jirtaa abaayo tiimkeena ii soo sheegtay 6 bilood markay wada dhakhtarka ayay tagtay ilkaha indhaha markasta u taga waxay tiri wuu igu biirin jiray la iguma biirinay tiri wuu yaabay weligay mis dhihinay tiri waa ogaatay inay fiican tahay aragtida xataa inay u fiican tahay ma arkin ma ogeenay tiri ما شاء الله تبارك الله yes alopecia ayaa la dhahaa okay cudurka wiilka aan ii sheegay okay so fiiri gabadhani waxay u tagtay dhakhtarkeeda indhaha okay hal bil markii qaadanaysa Fountain of Life okay waxay ahayd 12 iyo 25 hadhowta waxay tagtay 11 iyo bar ما شاء الله تبارك الله improvement weyn ayay heshay hal bil kadib abaayadaas 6 bilood ay wadaba because marna isbees dheheen waa isbaari lahayd meeba ogeenba okay ما شاء الله so again tusaale after tusaale meel kasta ayaa ka arkaysa hadal waa xasuustaa testimonidan markiina la soo wadaagay waa isku ooyay wallahi waa maamo aragtidii ka tagtay aragtidii yaa dhin astaghfirullah xasuusti ayaa ka tagtay okay so xasuusti way ka tagtay ilmaheedii ayay garan weyday إلهي سبحانه وتعالى محو قدري إن مركي Fountain of Life أي بلاوضي المهيدن أي حوصته كوب كيدا أي عبيسن أي قبسن كرتين أول كروح إسكي قفك صاص إسكيالو صدح بلود قدوهود أي كوب بلاوضي المهيدن أي كو حوصته كوب كيدا عاد وعفتو سي قف حيئة إسلا أيادي شيكا ديدا أيالو ووضا هالكني وحي بلاوضي Fountain of Life أبريل 15 2019 لبا أسبوع كدب محل أوغاده improvement أما إن أي كسي في عنانيسي محيب بلاودين يدهدو ودركسنهي أما واقع جيسانهي أول كورو وحاسو لما يسأليه كريم 8 إشي كدب محاد عين 8 ماي أوكي 8 ماي okay no 15 so a day month yeah 10 May تنا أبريل 15 right so 2 weeks after maxaa dhacay maamada kale iyadana waa testimony kale waxa dhacday waxa waaye in qofkii caawin jiray uu xanuunsado ayadii yaa kacday meesa kicin kaliya cuntadeedii waxay u karisay xaajigeedii yes heer waxay gaartay cuntadeeda ayaan dhow waxa la hadlay abay juweeriya oo teamkeena kamid ah waxay ii sheegtay adeer oo xitaa adiga 29 jira waa sariir ku aruuray goojadeena uu bilaabay ay tiri markuu waday tiri 2 asbuuc miya 3 asbuuc iska daa sariirnu joogay deedka ilaa iyo deedku tagaaya dadkii jaarka asaga u yeeranayo inay casriye lacabaan halkaas casriyeynaya ay tiri sariiru ku jiray subhanallah soo mar labaad iyo saddexaad aad iyo aad la isugu raacay yar iyo weynba ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu faa'iido ka siiyo halkaana maxaa waaye dadka jecelna ogaadaan sidee weight iga dhici karaa yes miisaan waa iska ridi kartaa teamkeena xisaamada inta qof oo ka soo warantay miisaankooda sidee marka miisaanka loo helaa ugu yaraan 30 dhibcood inaad qaadanaysid waaye okay 3 jeer maalintii quraac qado iyo casho okay again waa kana dadkii dhaqaatiirkooda u tagayaan oo soo ogaanayaan okay 140/90 qofkan fiiri dhiikar qof qabo ayuu ahaa
okay ما شاء الله تبارك الله 165 وكو بلاابي over 94 هذا 140 أيو مرايا improvement آدي أضفي عن ما شاء الله okay وكان ضدكي ويتك أوغر داعي fountain of life again ومرخاتي مدونتو okay ما شاء الله تبارك الله قبردان وحي أهان جرت بقول إيو كنتني تضوى pound بقول لواتني تضوى أي نقطة هل سنة كدب ما شاء الله تبارك الله صدن pound أيا كدعضي okay وكان more فيري هذا رني ويل كان مارسو إلا إيو مي صدحي 1 pound أيا أوغر دعضي لابا بلو قدهون okay مدام فيري hooyaday macaan markii dadkii waxay ku jirtay qabay thyroidka dawadii thyroid goorma laga joojiyay fountain of life waxyaabaha ka faa'iiday ka mid tahay fiiri wiilkan marka hooyo inta soo barari jirtay markuu ku kacsan yahay saas ku aqoon jirnay fiiri wiilkan 9 bilood ilaa 10 bilood kadib markuu bilaabay way ka gurtay thyroidki ma sha Allah tabarakallah okay fiiri dadkani kor xanuunka gaareen okay lugahooda korkana waa marinaysaa afkana waa ka qaadanaysaa subhanallah ma wala fiirin karawa okay day 1 iyo day 2 bal fiiri ha dakharka dadka gaarayo daawaca wadankeena waa aragteen waa nafya daawac ha wixii dhan isku dabiibi jiray ayaa gacanta noogu jiro okay fiiri meeshani wax waliba midaan waa gabar saaxiibanahay waa xasuustaa laba maalmood ka hor ayuu ka soo baxay aroos u socotay iyadoo oo hinays isoo wacday nabara iga soo baxay aroosna waa leeyahay markaas dhahay fountain of life kuma taalaha mari bal fiiri iyadoo happy ah ayay hadhowta arooskeeda aaday okay nabar weyn ayaa ka soo baxay sida loo joogo okay fiiri gabadhanina okay before iyo after again waa kana research after research testimony after testimony وشيغيا سو waxyaabahaas oo xagee ka heli kartaa adiga waa kan sawir ka qaado fountain of life official page kan okay page kan tag indhahaaga ayaa ku macalin ah ayaa arki doona waxa soo dhan hadhoodina dabcan waxa ka saaran xil inaad dadkii kale la wadaagto u faa'iideysa anaga u faa'iideynayno okay all right so alaabtaas aad aragtay haddii aad jeclaan lahayd inaad furatid adigana emailkaaga sidii faa'iidana uga heshid walaalaha kalena ugu faa'iideysid waa kana aaday simple u tahay anaga sida dukaan looga dhex furto koow maxaa lagaaga baahan yahay shaqadaada dhan maxaa waaye dadka inaad la wadaagtid ganacsigaagii website-kaagii iyo alaabtaadii dadkii website-kaagii alaabtaada ayay galayaan yaa u geenaaya FedEx iyo DHL adiga shaqadaada ma aha hadhowta maxaa la hooyanaysaa faa'iidadaadii haye maxaa kali lagaaga baahan yahay marka bil walba dhaqdhaqaaq yar oo la dhaho smart buy gan maxaa waaye bil walba adaa daawacada u baahan adaa kareen u baahan adaa shaambo u baahan intii aad ka iibsan lahayd Walmart iyo Costco iyo Target iyo Heblow waxa ka dhex iibsanaysaa dukaankaagi alaabtaas markaa iibsatid ama adiga isticmaal ama CEB aday ku taala haye maxay tahay faa'iidada kugu jirto inaad dukaankaaga maal gashatid bil waliba waxa ku maal gashanaysid waxa waaye $150 oo ah Canadian koo faa'iidada ugu horeysa waxa waaye discountigaaga waxa kugu biireyso 10% labo qof allaale qofkii maanta laga bilaabo teamkaaga soo biira ama adiga keen ama qofkii ku keena ha keeno wax allaale waxa farta uu qaado adiga maxaa ku saaran 8% oo ah commission labada faa'iido ay leedahay inaad dukaankaaga maal gashatid bil walba waana inta ugu yar lagaaga baahan yahay dhaqdhaqaaq okay sidee marka uga mid noqon kartaa company-geena saddex nooc ayaa jirto noocan waa nooca ugu horeeyo oo la dhaho brand partner maxaa ku soo galaysaa $395 Canadian kaliya waxa ka maqan taxi ama canshuurta haddii aad joogtid Canada haddii aad wadamada kala joogtid waaba intaas un baa bixinaysaa so website-ka ayaa helaysaa 20% discount maanta laga bilaabo ku adeegani lacagtii aa heshay $280 lacagta aan bixisay aan dhahee $280 waxaa ku helaysaa shopping credit waxaa wareejinaysaa garaangar oo helaysid gift bilaash ah welcome package cilmiyeysan quruxsan ayaa lagu soo dirayaa $10 oo ah cryptocurrency waa lagu siinayaa package-ka labaad waa kana waxaa la dhahaa lifestyle advisor waxaa ku bilaabaysaa $1,345 Canadian maxaa lagu siinayaa $910 shopping credit oo alaab ku iibsanaysid maxaa kale lagu siin $100 oo ah cryptocurrency-geena
wili garaangarta waa wareejinaya free gift waa helaysaa welcome package ayaa helaysaa 30% discount maanta laga bilaabo ku adeegan 3 bilood kadib markaa bil walba 150 ku adeeganaysidna discountigaaga wuxuu gaari doonaa 40%. haye waa kana marka midka ugu fiican 95% waa midka uu joogo hadda teamkeena dadka soo galaya companygaas oo dhan waa number 1 midka ay qaadanayaan sababta maxaa waaye waa midka kuugu faa'iido badan dhinac walba markii loo fiiriyo so waa $1965 Canadian lacagta aad bixiso ku maxaa lagu siinaa $910 shopping credit $100 cryptocurrency maxaa kaloo haysataa choice adaa kala dooranayo $100 oo fashion oo bilaash ah ama dhalooyin 6 dhalo oo fountain of life wala aad promotion ayaa jiro oo mar dhow 31 bishan ku eg oo 6 dhalo maahina 6 kala heli kartid oo heli kartid 12 dhalo mar oo idin sheegi doono insha Allah maxaa kale waxa qarka u saaran tahay bonus ama hadiyad la dhaho variance bonus shalay waxa ka hadlay Renelia oo hayaanka seminar-keena maantana waxa ka hadlay Rico oo ah sales development manager-ka inoo fadhiyo Philippine wuxuu ku leeyahay dad waxa ku jiro company-ga hal bil ama 2 bil ka hor soo galeen bonuska dartiisna maanta sameynayaan 5 figure income waxa waaye waa 5,000 iyo wixii ka badan kaliya maxay ka sameynayaan bonuskan hadiyadan soo hadiyadan ha yareysanina waxaan heli kara dadka ah lifestyle director 1 iyo wixii ka sareeyo waxaan lagu helayaa lifestyle advisor plus markii lagu soo galo haye maxaa kale maanta laga bilaabo discountigaaga waxa waaye 37% ama waa iska 40% right 30 markii 10 lagu daro maxaa kale garaangarta ayaa wareejinaysa free gift ayaa helaysa welcome package ayaa helaysa maxay kaloo ku ogolaanaysaa package kan dhaqaalaha ugu badan company-ga inaad sameysid maxaa kale MGR isa u tartamaysa oo ah hadiyad bilaash ah heli kartid 1 share 2 share ilaa 3 share ilaa iyo maxaa qarka u saaran tahay gaarigi hadiyadii bonuska ahayd lifestyle director 1 darajada ahayd ayaa qarka u saaran tahay haye maxaa kale lacagta idin dhahay $910 oo shopping credit maxaa ku heli kartaa waxa ku qaadanay labada mid aniga waxaan kula taliyaa midaan maadaama alaabti oo dhan ay isku jirto laakiin wili 400 iyo xoogaa ayaa account kuugu haraayo intaan waa half lacagti aad heshay ma sha Allah hadda marka waxaan tusinayaa sida dhaqaalaha looga sameeyo website-ka waa soo aragnay waxaan soo aragnay package-yaashi haye sidee dhaqaalo ooga sameyn karaa bal halkaan ila fiiriya sidee u fududahay number 1 14 nooc ayaa anaga dhaqaalaha u sameynaa midda ugu horeysa waa tan waa midda tafaariiqda gabigeen weynu naqaanaa tafaariiqda maxaa waa shay kastaad iibisid faa'iidadeeda ayaa leedahay tusaale yar aan siiyo goojadeena fountain of life inta ugu yar ka sameyn kartid hal dhalo fountain of life markaa gadid ama gacantaada ku iibi ama website-ka qofka ka gato waa $20 haye ka soo qaad bishaan waxa iibisa 5 dhalo asbuuci waa hal dhalo camal aa iibinaysa halka maxaa ka heshay $100 toban dala iibisa bishaan $200 midda ugu jeclahay ka soo qaad bishaan waxa iibisa 100 dhalo waa $2,000 100 dhalo waxa laga qofka inuu dhihi karo soo ku iibina adiga kaliya ma qasab inaa iibisid dukaamaha geeyeen kartaa dad ayaa u geyn kartaa anaga waxa ku dhahaa 10 dhalo hadaa iibisid hal xabo bilaash ayaa ku siinaya deal ayaa la gali kartaa dadkii haye $2,000 oo kaasho cad ayaa la tagaysaa 200 ayaa gaday 4,000 soo nambaradan way iska socon karaan limit ma laha xad ma leh dad badan oo teamkeena ama company-geena ku jiro midaan kaliya ayay ka dhargeen wax kale uma baahno laakiin 13 nooc oo kala jirto nooca labaad waa tana maanta ganacsigaaga ayaa furatay dukaankaaga ayaa furatay dabcan maxaa sameynaysaa dadka ayaa la wadaagaysaa waxa leedahay bal kaaliya ila fiiriya haye qof Allah la qofkii soo gala oo ku soo gala adiga madaxaaga adiga markaa tahay lifestyle advisor asagan uu ku soo gala lifestyle advisor plus oo ah darajadeena ugu fiican maxaa lagu siinayaa $350 oo bilaash yaa dhihina oo bonus hadiyad why qofkaas adiga ayaa madaxaaga ku imaaday adiga ayaa training u sameyn doono adiga ayaa la shaqeyn doono maxaa kale alaabtii uu gatay qofkaas because package kasta alaaba la socoto waxa la socdo commission taas darteed ayaa lagu siinayaa haye midkaan marka fiiri ka soo qaad bishaan 4 qof oo lifestyle advisor plus ayaa keentay adna waxa tahay lifestyle advisor qofkii waxa la yiri 350 halka maxaa kaaga soo baxay $1,400 kaliya maxaa sameysay dadka baa la wadaagtay haye midkaan sawirka qaata su'aalaha ugu badan li weydiiyay waay
okay marka adiga tahay package-ka hoose iyo package-ka sare maxay ku kala duwan tahay difference aad iyo aad u dhaxaysa ayaa jirto qofka markuu yahay package-ka ugu hooseeyo ka soo qaad wuxuu keenay qof package-ka ugu sareeyo bonuskaaga ama dilaalkaaga waa 150 kaliya laakiin marka adiga tahay lifestyle advisor ay keento qof package-ka ugu sareeyo dilaalkaaga waa 350 shaqadii waa isku mid waa xiiqaysa maanta oo dhan haye maxaa marka ku falaysaa midkaan heli kartid because you did the same amount of work right so midaan waxa waaye commissionka ama dilaalka ugu horeyso heli kartid haye midka saddexaad maxaa waaye saddexdaan ugu horeyso waa saddexda ugu muhiimsan inta kale waa hadiyado haddaa saddexdaan ka adkaatid alaabtaadana iibinaysid dadkana ganacsiga la wadaagaysid halkaa maxaa marka ka dhalanayo team qof kasta adiga la wadaagtid muxuu sameynayaa macaamiil kale iyo team kale ayuu la wadaagayaa haye qof allaale qofkii adiga waa ku kala marka qof allaale qofkii marka hoostaada imaado shayga uu qaado farta uu qaado adiga maxaa leedahay 8% iyo bar waa markii dukaankaaga bil walba $150 aad ku maalgashanaysid haye hadhowti commissionka marka ma istaagayaan no haddaa fiiriso kumbaniyaasha badankood maxay ku leeyihiin markii tiimkaaga uu isdhaldhalo ilaa iyo 10 generation ma dhaafi kartid inta saas ma aha ilaahay oo 100,000 oo qof may kaa hooseyso malaayiin qof kaa hooseeyaan weli waa leedahay faa'iidada why maadaama bil walba dukaankaaga maal gashanaysid dadkaana waa dadkii har iyo habeen aad la shaqayn doontid dan dabcan kombanigi waa maal gashanaysaa waa ka shaqaynaysaa faa'iidada soo aruurto xaq ma ah inuu kombaniga kulli uu la hoydo maxaa kaloo halkaan ooga duwanahay kombaniyaal badan ka axad annaga waxaa la fiiriyaa computerkeena wuxuu fiirinayaa dhaqaalihii ku soo galay ka axad haddii aadan shuruudihii la raba aadan buuxin saa commissionka u heshid meel ayaa lagu dhigayaa kombaniyaasha kale saas ma aha waa lagaa daadinaya waa lagaa qubaya okay maxaa kale oynan annaga haysanin ranking qof waxaad arkaysaa maanta noqda lifestyle director 1 haddii bishaas uusan shuruudihii laga raba uusan buuxin dib ayaa loo celinayaa bal maxaa ka niyad xun dib ha lagu celiyo annaga waxaas ma lihin waxyaabo badan aan ooga fiicannahay ayaa jirto markii company kale lagu soo bandhigo ama aad maqashid company kale aad iyo aad muhiim u tahay inaad fiirisid compensation plan oo isbarbar dhigtid indhahaaga ha kuu furnaadaan okay halkaana fiiri marka wow the power of binary maxay ka dhigan tahay waxaan ka hadlaayay waxa ugu yar bil walba lagaaga baahan yahay inaad dukaankaaga gashtid maxaa waaye $150 okay adiga markaa bil walba dukaankaaga $150 gashanaysid dabcan macaamiishaadii iyo tiimkaagina way sameynayaan $150 waa $2 fountain of life ana gurigeena bil walba $250 ayaa ku baxdo $2 ilaa $3 goojada nagu baxdo daawooyinka cadiga shaambooyinka kareemada waa normal right haye fiiri tusaalahan ka soo qaad macaamiishaada iyo tiimkaaga markii la isku daro waa 14 qof kasta wuxuu ku adeeganayaa ugu yaraan $150 $150 kasta maxaa saaran 69 CV ama dhibcahaas hadhowta maxay isku bedelayaan commission waxa ku soo dhacaysa asbuucaas $45 okay ama tiimkaaga wuxuu gaaray 1725 qof walba $150 ayuu ku adeeganayaa tiimkaaga kaliya ma ah iyo macaamiishaadi haye qof kasta waxa ka soo galaya 69 CV halka maxaa kaaga soo baxay $10,120 yes numberkaas waa muhiim dadka badankood ganacsigeena soo galo waxay ku leeyihiin bishii haddaan ka sameynayo ugu yaraan 10,000 walacada waa dadka qurbaha joogo wadamada kale hadda Malaysia iyo Kenya iyo Thailand iyo wadamadii aan ka imaaday $200 ayaa kaafinayso qofka shaqada ugu fiican oo bangiga u kala waxa lagu leeyahay $300-400 uu sameeyaa so ayaga halka markay marayaan way dhargeen 79 macmiil haday helaan iyo team 150 ku adeeganayo bil walba $460 soo dhacayso waa mushaar buuxo maxay kala sameeyaan teamka Thailand waxa lagu leeyahay $600 qofka jooga Thailand haduu sameynayo full time income waaye maxay sameeyaan ugu yaraan 2 qof oo lifestyle advisor ay soo galiyaan خلاص full time income kooda way haystaan meel u kala hayaan malaha ma sha Allah laakiin anaga wadamada aan joogno kale qofku wuxuu ku leeyahay 10,000 hadaa sameeyo waa ka fariisan lahaa waa marka aniga 3 sano ka hor
2020 July aan ka faray shaqada dawladda waa markaan gaaray inaan sameeyo 10,000 waxa u dhigantaa laba jibaar wixii aan ka sameeyay dawladda Canada soo sidee u sameyn kartaa inta ugu yar waatana haddii qof walba uu adeeganayo adiga iska bilow qof kasta uu adeeganayo inta kaliya ayaa dhaqaale fiican ka sameyn kartaa ma sha Allah tabarakallah haye hadiyada kale oo idin sheegayo waatana oo ka hadlayeen Rene iyo Rico dad badan 5,000 iyo 10,000 ay sameeyaan hadiyadan kaliya waa various bonus ayaa la dhahaa qof allaale qofkii lifestyle advisor plus oo teamkaaga soo galo adiga markaa tahay lifestyle director 1 ugu yaraan waxa ka helaysa bonuskan meeqa sameyn kartaa 10,000 extra hadda tahay lifestyle director 1 lifestyle director 2 waxa sameyn kartaa 15,000 extra ah lifestyle director 3 25,000 extra lifestyle director 4 waa 50,000 oo extra ayaa sameyn kartaa hadiyadan kaliya intii kale oo dhanna waxay ku tahay extra ma sha Allah tabarakallah nooca lixaad dhaqaale u sameyn karna maxaa waaye work hard play hard waa shaqaysay waa dadaashay hadiyada ayuu company-gana bixiyaa mid ugu horeysa maxaa waaye markab yes haday waxa idin sheegay in 2 bilood aan soo joogay Asia Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka suko maxaa sabab u ahaa markabkan sanadkan markabku wuxuu ka baxayay Singapore ka tagnay waxaan tagnay Penang Malaysia oo teamkeena Malaysia Kuala Lumpur jooga noogu imaadeen waxaan kaloo aadnay Phuket Thailand hal asbuuc ayaynu soo dalxiisnay ma sha Allah dib u taga social media-heena indhaha ayaa ku xanuunaya sidoo uu egyahay nolosha aan ku nooleen yaani ma sha Allah tabarakallah so midka soo socda muxuu bixi doonaa January ama February sanadka soo socda aad iyo aad insha Allah billahi kariim ayaan ugu boorinayaa inaan nagala mid noqotaan yaa lagaaga sheekeen qofka saaran noqo darajada lagu noqdo maxaa waa inaad bilaash ku raacdid lifestyle director 2 meesha aad isgeenayo after that company-ga ayaa ku qaabilayo maxaa kaloo haysanaa exotic vacation dadka loo dhigo lifestyle director 4 dadka aniga oo kala ah Dubai la geenayo oo kale diyuurad ayaa raaci kartaa bilaash ah private jet yani the list goes on and on ma sha Allah hadiyada kala heli karta maxaa waay gaari sa ujeedaa halka ayaa ku soo waran walaashay Raxmed Maxamed Ottawa la degan okay ayadoo nurse oo full time shaqeyso haddana ganacsiga part time ka shaqeysay heer waxay gaartay ay sameysay enough commission enough car bonus ee hadhoodi gaarigeeda jeceshahay soo qaadato soo haddii abaay raxmay dadkan ay sameyn kartaa 100% maxaa kale oo dhaqaalaha u sameeyna maxaa waaye gaariga marka waa kana mid ugu hooseysa waxa waaye 500 ilaa iyo $4,000 extra ayaa sameyn kartaa bil waliba all right halkaana maxaa waaye iodine test طبعا maadaama hadda wada isla joogin anaga hortiina ma ku sameyn karo iodine test waxa waaye shaygan waa shayga markay noqoto oxidizerka ugu strong garaysan dukaamada farmashiyaasha ayaa ka soo gadan kartaa okay waa aad strong u tahay ama u quwad badan tahay waa qaadanaysaa koob biyo ku shubaysaa waa ku daraysaa fountain of life dhowr dhibic ku dhex dar maxaa dhow soo baxaayo colorkiyo dhan inuu clear noqdo taa waxay ku tusinaysaa mar labaad saddexaad fountain of life iyo sidee u tahay u quwad badan tahay okay so maxaa waaye marka stepska hadda nagu xigo 10kaaga dhibcood inaa heshid so hadda wada joog lahayn hal ayaa afkiin kugu soo lahaa 10 dhibic maxaa kale inaa furata account-kaaga bilaashka ah yes ugu yaraan macmiil noqo ama saddexdan package mid dooro yes mid dooro oo hadhowtina alaabtana discount ku helaysid hadhowtina walaalo kale ooga faa'iideyn kartid sida u heshid extra income yaana jeclaan lahayn extra income inuu helo yaana jeclaan lahayn inuu haysto emailkiisa ama dukaankiisa waa kana promotionka idin sheegay ma sha Allah promotionka wuxuu ku egyahay 31 bishan May aad iyo aad ayaan ku boorinayaa inaad ka faa'iideysataan ma sha Allah teamkeena bay'aasha u dambeysay ka faa'iideysta ayay kamid tahay promotionka wuxuu u shaqeeyaa qof allaale qofkii ku soo galo lifestyle advisor plus wuxuu company-ga siinayaa $6 oo fountain of life oo extra ah maxaa kaloo helaysaa ama $1 oo fashion qaadane ama waxa leedahay may $6 fountain of life isii halka maxaa kaaga soo baxaayo $12 oo bilaash ah yes $12 marka iibisid waa $100 iyo ka badan oo hadiyad bilaash ah soo lacagta bixisaba way soo noqotay aad iyo aad muhiim u tahay asxaabtaada iyo walaalaha la wadaag adi iska bilow dadka kale la wadaag insha Allah intaas waxay ku eg tahay presentation keeni ma sha Allah waa inoo joojinaya recording-ka ma sha Allah sidii walaalaha ina daawanayo ooga faa'iideystaan intaana soo xirin ma sha Allah walaalo badan oo ujeeda gadaal ka imaadeen soo dhawaada welcome yaa jeclaan lahaa inuu nala wadaago testimony-deena insha Allah welcome
qof hadduu jeclaan lahaa walaalaha u faa'iideeyo hadday noqoto fountain of life ama kareemadeena ama daawada cadiga ama dhaqaalaha insha Allah ku soo dhawaada our UK maqal ma jira ma soo jeedaan wali walaalihiin ma u faa'iideynaysaan maadaama callkan teamkeena UK ilaahay khayr ha siiyo ayaga ayaa uu ka imaaday maanta ma sha Allah tabarakallah okay walaalo badan ayaa ku jira ujeedaa kulligiin martimaad tihiin I'm not sure so intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa recordingka waa inoo joojinaya asxaabta Facebook live oo ku mahadsan tihiin wax allaale waxaa su'aal qabtaan insha Allah qofkii ku soo casuuma dib ugu noqda YouTube channelkeenana Opulence Empire YouTube channel halkaas nagala socdo insha Allah waxaan inkaga tagayaa maalin wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan iyo to the billion salaamu calaykum